wafdigan ballaaran oo horkacayay Suldaan Faarax Ducaale Cali Ciid oo ka mid ah salaadiinta gobolkaasi Sanaag gaar ahaan ka soo jeeda degmadaasi Ceelaf Weyn ee gobolkaasi Sanaag ayaa gaaray deegaanada degmadaasi Darar Weyne ee gobolkaasi Sanaag deegaanka Xamilka Beerweyso iyo waliba Qaliiqaac kormeerkan uu suldaanku ku baxay deegaanadaasi ayaa ahaa u kurgalka xaaladda nolosha dad iyo dunyo deegaanadaasi iyo waliba si adkeynta iyo xoojinta nabadda deegaanadaasi hore loo xidhay waxaana ugu horeyn suldaanku uu gaaray degmadaasi Darar Weyne ee gobolkaasi Sanaag halkaasi ay ku soo dhaweeyeen dadweynaha deegaankaasi degmada Darar Weyne iyagoo ruuxaya caleemo qoyan sidoo kale waxa uu suldaanku lagu soo dhaweeyay deegaanada Beerweyso Xamilka Qaliiqaac kuwaasoo dadka iyaguna deegaanadaasi ay suldaanku ku qaabileen caleemo qoyan iyo waliba jawi farxadeed ugu horeyna dadkii deegaanadaasi suldaanku gaaray ayaa ku xog waramay xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin iyo waliba sida ay u soo dhaweeyeen suldaanka iyagoona halkaasi ka marakacay odayaasha iyo dadweynihii halkaasi ku soo dhaweeyay suldaanka inay taageersan yihiin isla markaasina ay nabadda meel uga soo wada jeesan doonaan adiga iyo waftigaaguba hawsha waxa u taala qaybtaadii way ku taala xilkaaga iyo xilkayaga iyo xilka dalka dhammaanba intay leeyihiin waxaynu ku gudan doonaa xilka geedkeenu ku gudan doonaa siyaasi ilaahay baan kugu dhaarshi oo walaalnimadan kugu dhaarshi oo sandaladan kugu dhaarshi bulshada halka ku nool rag baa soo waday ilaa waqtigan aynu joogno ilaa waqtigii ilaahay abuuray geedka ay fadhiyeen wuxuu ahaa geedka nabadda waayeelkoodu fadhiyay looguna iman adiga iyo kuwa kale ee shaqada kula hayaba bulshadaasi waxay leedahay dawladiyadu ma leh dawlad ma taqaan maamul guud iyo magac baa lagu sheegtaa waxaa noogaga shaqaysaan oo aan idinku soo dhawaynaynaa oo idinku dooranay oo idinku karaamaynay oo idinku alla barinay wargeedka nabadda noo gogola wixii wax kale ka shaqaynaya xaasidii ha jaban baanu leenahay waxa nabadgelyada keenay ilaah waxaana ka shaqaynaya oo dabada ka wada dadweyne iyo waxaanu suldaanka iyo wafdiga la socdaa ku soo dhawaynaynaa oo sharafti leh oo aqoon leh idinkana waxaanu idin sheegaynaa suldaankow iyo wafdiga la socotow cidda meesha ugu timaadeen cid idinkama maqna labadii reeree meesha degi jiray niyadda ha gelinina waan laydin iman baryo badan iyo bukaan badan labadaba waa laysku nacaa war markaanu weeg walba wax barino oo dawladda magac ku sheegu noo yimaado oo ay waxba noo qaban waayaan baanu baryadiiba ka xiisa dhacay alla barigii habar lamaan waanu go'aaminay waa u dhignay tiraaniya iyo 10 ragti baanu ka dhig waa dhigaynaa haddii ilaah garto in ilaahay soo celiyo magaca wanaagsan ee islaanta waxaanu baahi qabnaa biyo la'aan waa qabnaa waxaanu qabnaa maqal la'aan waa qabnaa aan nala maqlin weliga baan qaylino kiba boqol waanu u baahnayn deegaankiisii buu yimi waxaanu rajaynaynaa inuu kii dadkiisa iyo dalkiisaba u shaqayn lahaa uu noqdo aad baanuna ugu hambalyaynaynaa caruur iyo ciroole iyo waayeel iyo guddi mid kastaba aad baanu ugu hambalyaynaynaa waana ku soo dhaweynay annaga xaaladdeedu waxay ahayd haddaanu nahay wafdidii sudaanka la socotay xaalad kuurgala xaaladda nabadgelyada in loo kuurgalo xaaladda nabadgelyada sidii wararkii hore meel wacan bay maraysaa suldaanku wuxuu u socdaa sidii loo sii xoojin lahaa nabadgelyada sidii duruufo badan loo qaybsan lahaa dadka deegaankan ku nool suldaanku Suldaan Faarax Ducaale Cali Ciid waa suldaankii guud ee Bohod waxa weeye Bohod waa wada doorteen Bohod cidna kama maqnay suldaanka markii la dooranayay waanu soo dhawaynaynaa waana ku faraxsannahay si fiican baanu u soo dhawaynaynaa suldaanka nabadda weeye booqashada uuna soo booqday annana waa ku mahadanaynaa tuulada Beerweyso annagoo joogna madax dhaqameedadii hore suldaanka noogu biiray suldaan adigana waxaanu kaa codsanaynaa inaad suldaan maanta qura noo yimi aanad noqonin mar walba daatada adduunka iyo dadka aad ka warhayso iyo suldaanka waynu sognahay waxaynu nahay Boho ma aha suldaanku suldaan cid kale waa suldaan Bohood beesha Bohood weeye Cabdi Faarax Ducaale waynu doorannay waana ku mahadsannahay dhammaanna waa u soo wada jeednaa meel baynu uga soo wada jeednaa maaha suldaan reer
ma aha suldaan cumar ma aha suldaan ficiis kale ma aha suldaan dawladeed waa suldaan bohood wey hadalka waa in la fahma waanu kugu mahadsannahay waanuna ku dooranay aan soo dhawaynaynaa waftida uu hogaaminayo faarax ducaale cali ciid faarax suldaanka nabadda beesha bohood soo dooratay waxaan soo dhawaynaynaa suldaanka faarax ducaale cali ciid haddaan nahay beesha xamilka waan la shaqaynaynaa waxaan kula shaqaynaynaa gacmo furan baahiyaadka isagaanu ka wada hadlaynaa hadhowta wixii baahiyadaan u sheeganayno suldaanka haddaanu nahay deegaanka xamilka iyo mujtamaca deegaanka jooga rag iyo dumarba waa soo dhawaynaynaa waanu gacmo furan baanu ku soo dhawaynaynaa suldaanka beesha bohood suldaan faarax ducaale cali ciid annagoo si sharaf lagu soo dhawaynaynaa si fiican haddaanu nahay beesha xamilka si fiican baanu u soo dhawaynaynaa waftida ballaaran ee la socotana waa soo dhawaynaynaa suldaanka beesha bohood faarax ducaale cali ciid ayaanu halka ku soo dhawaynaynaa waftida la socota dhammaan gacmo furan ku soo dhawow baanu leeyahay suldaan beeshu waa beeshaadii waana kuu diyaar waana ku raacsan yihiin waana kula shaqaynaynaa waxaanu ku soo dhaweynay magaaladan la yidhaahdo gal barwaaqo amase looba yaqaano gal iyo qac suldaankii nabadda ee beesha bohood xidigga nabadda ayuu la baxay suldaankii ayaanu ku soo dhawaynaynaa aanu u taageersannahay ulana shaqaynaynaa suldaanka oo u garab taagannahay baalashiisa midig iyo bidix baanu nahay sidaa ayaanu ku soo dhawaynaynaa suldaanka waana siboodsannahay waana ku mahad celinaynaa aad ilaa 100% baanu mahad celinaynaa suldaankii nabadda uu yahay inaanu la shaqayno oo haddii damkala ka dhigayay aanu haddii damkala u jajabnaano Soomaalilandna sidaasaanu u sheegaynaa ogeysiinaynaana suldaanka waanu soo dhawaynaynaa insha Allah bismillaahi kariim khayrna waanu rajaynaynaa barakaanu rajaynaynaa cimri dheeraan baanu rajaynaynaa ayro dhaqan wanaagsan si wanaagsan baanu rajaynaynaa khayr baanu rajaynaynaa inuu sii barbaaraa baanu rajaynaynaa dadka halka kan isugu yimi farxad buu u soo wada baxay farxaddaasoo ah suldaanka la soo xuseeye boho oo dhan soo xuseen ee suldaan faarax ducaale cali ciid ee laga soo xulay dalka gabagabadii waxaa isna halkaasi ka hadlay suldaan faarax ducaale cali ciid oo shacabka deegaanadaasi kula dardaarmay in ay nabadgelyada meel uga soo wada istaagaan isla markaasina ku mahadiyay sida ay u soo dhaweeyeen suldaanka ka waraysan ee dhawaan la doortay waxaan u socday laba qodob inaan idin duceeyo iyo inaan xaaladda nabadgelyada idin kala dardaarmo intaas ayaan dadkayga u dhex marayaa intaasaan gudbinayay marka qodobka hore haddaan soo qaato horta nabadgelyada ilaahay baa haya ilaahay baynuna weydiisanaynaa marka laga yimaado way dhaceen wixii dhacay waa dhaceen shaydaan baa ka adeegay ilaahay baa ka jisaasinaya dhammaan dadka wixii ka qayb qaatay nabadaynta hadday xukuumadda tahay laamaheeda kala duwan hadday cuqaasha iyo waxgaradka tahay hadday dhammaan dadka u baahan ee haweenka iyo carruurta tahayba cid walba qayb bay ka qaadatay waxaan leeyahay ilaahay ha ka abaal mariyo cid kasta waxa ay ka qaadatay waxaan leeyahay nabadgelyadu al-amn wal iimaan iimaanka wax laga horreysiiyey oo iimaanka oo ah salaada soonka diinta aynu haysanay lagu camal falayo maalin kasta la jideeyay waxa laga hormariyay amniga nabadgelyada waxay tahay nabadgelyada in loo saciyo in la ilaaliyo in waqti la geliyo in juhdi lagu saaro in sida loo cibaadaysanayo looga shaqeeyo marka ayay istaagaysaa marka ayay dhaxal galaysaa marka waxaan leeyahay nabadgelyada ilaaliya isku soo dhawaada habar lamaan baa la yiraahdaa habar lamaan waxa weeye waa habar lamaan waa deegaan lamaan waa dal lamaan waa dad lamaan waa xirxim iyo qaraabo lamaan waxa weeye habar lamaan intaas oo dhan bay ka kooban tahay ma haddad wax soo ah dadka wax soo ah kala maqan ee laba wadan ku kala nool de qaraabanimadu baa ka dhaxaysa laakiin meeshii intaas oo xuquuqood baa ka waajibaya waxa ka waajibay tii deegaanka ka waajibay waxa ka waajibay tii qaraabanimada saxda ahayd tii dalka marka waxa weeye inaa ogaataan inaadnan meeshan ilaahay oo idin kala qaadmeedna ku kala tageyn
aad iyo aad baa u mahadsantihiin xukuumadda idinla shaqaynaysa ee ciidamada halkaa idin dhigtana aad iyo aad baa u mahadsan tahay iyagana la shaqeeya idinku wada shaqeeya waxaanu doonaynaa tuulooyinka inay isdhex gelino oo tuulo la isugu xidho waxaanu maqalnaa dee dadkaa hore u maray iyo caasimadaha wax la walaalinaya 2 caasimadood hadda inagu waxaanu doonaynaa inaanu 2 tuuloba la walaaleeyo waa in la isbooqdo oo sidaan aanu idiin soo booqanay oo kale ay isu booqataan waa inaa isdhex martaan Axmed Maxamed Cilmi